dhahay idhageyso, suurtagal ma ahan inaan adiga ku guursado. Sababtuna waxaa waaye waxaa tahay qol jiran. Aniga waxaa rabaa gabar fiican oo cudur aan qaban, ilmaheygana inay noqdaan ilmo caafimaad qabo. Aniga sidaad i arkaysid waan caafimaad qabaa, marka ma rabo qof xanuunsan. aad ay ugu jeesjeesay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كحرم ومصونة وناشن ومصونة ومركلة صلاة عطي وحيدين وضع مانتي فيديو عصب أو مقاكل عصب. أصحابتي كذلك صوبيرتي أما أصحابتي وقولي سجنا كي وحيدين الله يسود وهذا عايز مرتينينا والله هدي أنا نغمت إهين فضل ماشي كدودين مدون وغدك سونة دوام. أصحابتي هوري اللي جبتو حيدين الله هاي لايك يشار يكومنت إن شاء الله يودد على يداوشد إن شاء الله. أنا 5 دقيقة أما 8 دقيقة أما 12 دقيقة ولاش عافرستي وحوين مكاربتا أنا نحيي ترتاب مركا حيدين كرجينا إلى فيديوهيدا يداوتان وماليه إلى أصحابين يودرتان. waxaa kaloo aan ka codsanayaa haddii walaal qisa dhab ah oo adigu u dhacay ama walaasha ku dhacday ama walaalka ama familkaaga inaad isoo gudbisid. waxaan igala soo xiriiri kartaa instagramkayga follow soo leh Umusuna igu qoran. waxaa kaloo iga heli kartaa facebookkayga Faadimo Isxaaq Axmed igu qoran welcome. isla shaqeyno wada shaqeyn daahfuran. maanta waxaa noo wadaa qiso. qisadeena waxaa waaye qiso aad iyo aad cajiib u ah. qisooyinkan waxyaabo badan laga faa'iidaa aan noqono dad wax kala faa'iidaysta insha allah. idinkana commentiga ra'yigiina iyo waxyaabihiina igula wadaaga insha allah oo igu dhiirigeliya. soo dhawaada. qisadeenan waxay ku bilaabanaysaa gabadhan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Faadimo. Faadimo waa gabar akhlaaq iyo maxaa la yidhaahdaa diin leh oo muxajabad ah. waxay dhigataa jaamacad waxayna saaxiib la tahay gabar aan diinta iyo maxaa la dhahaa xijaabka ku wanaagsaneyn. Faadimo waxay noqotay in ay bedesho gabadhii saaxiibteed ahayd ilaa ay gabadhii ka noqotay gabar diinteed aad ugu fiican oo salaadaheeda waqtigeeda ku tukato, qur-aanka iyo axaadiista iyo adkaarta wax badan ka xifdisay. Faadimo saaxiibteed waxay uga sheekay jirtay familka oo gabadhaan dhalay inay aad u jecel yihiin Faadimo sababtoo ah inay ayada wadadii toosneed ee marsiisay. waxay kale uga sheekay jirtay in walaalkeed oo ah wiil dhalinyaro oo injineer ah uu jecel yahay Faadimo oona ka rabo in uu guursado. mar walbeeto uga sheekay jirtay inuu walaalkeed u baahan yahay aad u daneynayo rabo inuu mustaqbal ka yeesho Faadimo. ayadoo Faadimo arrintaasi ogtahay haddana waxaa dhici jirtay markay jaamacadda kasoo baxday inay ku aragto wiilkiyo meel istaagsan oo ayada ku mashquulsan oo ayada fiirinayo. mar walbeeto way arki jirtay wayna iska agmari jirtay. waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah Faadimo oo joogto maxaa la yidhaahdaa maktabad waxaa la yidhahdaa qofka aqooni meesha buugaagta jaamacadda laga aqristo oo baxsiga ama waxyaabaha laga baaro kale. aada ugu soo dhawaaday u imaado wuxuu ku dhahay aadan kuu jeclahay oo ku daneynaya waxaa rabaa inuu ku guursado. wuxuu ku dhahday haddee sidaas tahay waxaa rabaa inaan hal arin oo sir ah kuu sheego. waxaana rabaa inaad iga ballan qaadid in aadan qofna u sheegin maxaa tisxigan inaadan qofna u sheegin. wuxuu ku dhahay badan waaye qofna uma sheegayo. waxay tiri aniga waxaan qabaa sokor sidaas ay tahana qof og ma jiro. haddii aad igu rabtid inaad igu guursatidna waa kaasaa kasoo fikir beri jawaabtaada ii keen insha allah. sidii ay ku kala tageen maalintii labaad ayay balameen ugu imaaday. way kulmeen waxay ka sugaysay jawaab laakiin wuxuu noqday qof qalbigeeda dhaawaca ilaa uu gaarsiiyey inay sariir ku aroorto. markii uu imaaday wuxuu ku dhahay idhageyso, suurtagal ma ahan inaan adiga ku guursado. sababtuna waxaa waaye
waxaa tahay qof jiran, aniga waxaa rabaa gabar fiican oo cudur aan qaban, ilmaheygana inay noqdaan ilmo caafimaad qabo. Aniga sidaad i arkaysid waan caafimaad qabaa, marka ma rabo qof xanuunsan. aad ay ugu jeesjeesay. Faadumo waxay dareentay qalbigeedii aada u xanuunsaday. hadaladiisi xanuunkay ka qaaday, sariiray la kortay ilaa uu hadaladii banaanka u bixiyey, dadka dhan uu gaarsiiyey. aaday usii xanuunsatay. waxaa markii ogaatay gabadhii la dhalatay wiilkan Faadumo sida u galay oo xaalad xun galiyey. waxay ku tiri war maxaa kugu dhacay? waxay xasuusisay xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasalam, warma ogmiya calaamadaha nifaaqa inay kamid tahay qofka walaalka hadduu wax kuugu qarsado inaan qofna loo sheegin. aaday horta gabadhii iyo walaalkeed u kala xumaadeen. kadib Faadumo aaday usii darsatay. waalidka Faadumo wuxuu ku fakeray inuu gabadhooda wadanka oo ka qaado amase maxaadirada cumro oo u wado. hooyadeed aabaheeda ku fakareen si ay bal isku bedesho xanuunka gabadhooda. markay arkeen way soo wadeen. maxaa la imaada cumradii. intii cumradii Faadumo gudanaysay oo cumradii ku guda jirtay ayaa waxaa dhacday ama ogaatay islaan oo kuleel daran u dhima rabto. way soo oroday islaantii, meesha kasoo bixisay, way badbaadisay, banaankay keentay. kadib waxaa u imaaday islaanta wiil ee dhashay. Faadumo uma hadnaqay sidii hooyadii ugu badbaadisay. maxaa la yiraahdaa meeshii isku soo barteen, way soo baxeen ayadii iyo waalidkeed. waxay dib ugu soo laabteen magaaladoodii. waxaa ka daba imaaday wiilkii. acuudu billah, maxaa halkan wiilkiyaa ka daba yimid. markuu ka daba imaaday wuxuu rabaa gabadha soo doonto oo dhahay waa u baahanahay. waxaa la sheegay in ay xanuunsan tahay. wuxuu sii jeclaaday, wuxuu dhahay waa rabaa. sidii ayuu ku guursaday, ayna ku aqal galeen oo arooskooda ku dhacay. ilaahay wuxuu kala siiyey wiil yar oo aada u qurux badan. ayadoo familkeeda iska haysato maalin maalmaha kamid a waxaa u imaatay gabadhii ay saaxiibada ahaayeen oo walaalkeed aadka u xumeeyay Faadumo. kadibna waxay ku tiri walaalkeed wuu xanuunsan yahay, wuxuu guursaday naag, waxay u dhashay gabar. markuu xanuunsaday gabadhii yareed ee asagaba way ka tagtay oo way ka carartay. walaalkay dembigu adiga kaa galay. waxaan ogahay inaad tahay qof aada u qalbi wanaagsan. waxaan kaloo ogahay qof ilaahay inta u dhowdahay. waxaa kaa rajeynaya walaashay inaad cafisid walaalkay oo ilaahayna igu barisid. halkaas ayaa qisadeena maanta ku dhamaatay. qisadan waxay noo faa-iideyneysay qofka walaalka ah in aan lagu diganin. caafimaadkana ilaahay bixiyo. qof gacantiisa kuma jiro. qof asaga maanta hadii oo gacantiisa waxay ku jiri lahayn qof xanuunsanaa lahaa ma arki lahayn. sida loo kala lacag badan yaho kale aaba dhici lahayd inuu xanuunka loo kala qaado ama qofka oo miskiinka ah in xanuunka oo lagu reebo. marka alxamdulilah waxaa inuu ilaahay qof gacantiisa una gelinin xanuunka. marka wiilkan gabadhaneydii ma ka fekerin, iimaankiisa daciif ahay, inuu ilaahay awoodda leeyahay ayuu ilaaway. wuxuu kaloo ilaaway in qof miskiin ah oo daacad ah haddii aad dulmisid oo nafsigiisa kasoo baxaayo. caayadii shala oo ayada xanuunka ku caynayay asaga maanta sariir la koray. asaga naagtiisii oo isdhahaya naag caafimaad lahaa rabaa, ilma caafimaad lahaa rabaa. naagtii xanuunkii asaga ku dhacday sababtu shala gabadan uga cararay asagana looga cararay. marka walaal waa ku mahadsan tahay dhegeysiga muuqaalkan. haddii ku cajabisa qisada insha allah leega kaa rajeynaa. leegta wax makaa dhigeyso anigana dhiirigelina ay tahay. waxaan ka rajeynayaa ila dhiirigelisaan
anigana insha allah waa usoo diyaar garoobay ujeedin maxaa lahaa youtube awal markaan soo galayn soo gelinin maxaa yirahdaa youtube iyo lacag iyo waxaas maya laakiin inaan usoo gudbiyo dadkayga wixii maskaxdeyda yar ilaahay baray khibrad igu soo riday inaan dadkayga la wadaago si aan familiyadeeda u badbaadiyo waa soo daawan kartid muuqaaladeeda ugu horeeyo marka hadeertaan ayaa u dhalata marka hadeertaan waa inaan qarash gashid haddii aada u baahantaa qarash bahante marka idinkan igu taageera runta waa lama huraan qof kastoo meeshaan imaado wuxuu soo galaa lacag inuu ka shaqeeyo marka ilaahay dad xalaal quutaha naga dhigo waxaan ka rajeynayaa walaalahay inay garab istaagi doontaan daawasho leeg sheer inta waan ka rajeynaa haddii aan muuqaalkayga ku caajistay ama uusan ku cajabin waxaa kaa raaligelinayaa waqtigaaga qaaliga ah waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan inta aan ku kulmi doono videoga xigo ama muuqaalka xigo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.